عدي ديدا بالنماذج أمد الصوماليات عدي ديدا إن لو وده هالله عدي ديدا إن حلو وده قبصده أنا مقبل الصومالي إن أنت لا دحجله دش الشيء وده هذا السيان مقبل وإثيوبيا وكذا يعلم ذا مقبل عنه سيد مالنتي دويد أبي أحمد إنه محوها لو أنه الصومالي وإسكرنا يسقافه وإسكدينه وإسكود قانون المعذرة إنه يرى إنجليز وكله ترجمه ما واحد مش غني الرواية بان وقعنا أنا واحد إثيوبيا أنا نين صومالي حتى هادو مانتر رئيس الوزراء كان نقضوا آمن ما هي وحي لا هاي نظام بيلا هاي دولة وين وية وحبا أقرن أركيبيوين بيلا هاي استراتيجي بي صوماليا كلا هاي استراتيجي قاسو كوسو عنا يا هديك الرئيس الوزراء هان مايو وحيالها لا ياب كلو يدن قيا wax weey maalin dhaweyd ninka la leeyahay walaalkeen weey Abi Ahmed afartan iyo laba guuradii miyay ahayd dagaalkii 77 buu ka hadlay wuxuu sheegay oo xusay oo sanad walba uu xusaa annagu ma xusno wuxuu sheegay inay muxuu ahayd ciidamadii Itoobiya ka adkaadeen ciidamadii Soomaaliya oo kaara marna kaga adkaadeen oo xaggo keero kaas heroes oo in xataa taala kaara waxa la yaab leh oo ilaa hadda aan dhigaha la haystaa dagaalkaas dadkii laga xoreynayay oo Soomaalida ah magaalada Jigjiga ayaa ka mid ahay inay hadleen oo madaxweynihii dawlad deegaanka Soomaaliyeed hadlay oo ka hor yimid Abi Ahmed warkiisii oo yiri annaga weeye kuwa heroeska kuwa maxaa galiyada ah oo adkaanay oo ciidamada Itoobiya gafuur ka garaacnay oo 17 kilomitir looga yimid diyaarad lagu soo qaaday muxuu nimankii la oran jiray Kuban oo aanu idin jabinay annaga ahayd biyo markaas haddana shacbigii deganaa dawlad deegaankaas oo dhan kaceen oo ka hadleen ilaa maantay jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka soo bilaabatay Looyacdo ilaa Liboy qof ka hadlay ma jiro dawladda dhexe kama hadlin kama diideen kama jawaabin macnaheed marka dadkoodii ku dhinteen annaga weey dadka dawladoodii ku dhintay waa annaga jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ku dhintay asbaabta ugu weyn oo ku dhintay waxa ay dagaalkaas oo la isugu tagay Ruushka Mareykan bay isugu tageen Soomaa marka yaan wakiiluna marka yaa wakiilkana umada wakiilkana anu marka raayigaygu waxa weeye inaan isyeelin aan wada hadallo wariyaa inay hebel baa tahay waa ku garanaya adna inay hebel baa tahay oo iska ka dhicinaya xagga waa la murmaya marka hore ka bacdina waa naqaana Soomaalidu say markay isku xanaaqdo iswareerso su'aasha marka ka bacdi warmaha dhulka dhigaan oo heshiiyaan Soomaa yaan shacbiga la lugoyn shacbigaani ma kala maarmo mana kala maarmi doono mana kala maarmi karo waa lugooyo haddii dad gaar ah yiraahdaan aniga reer hebela aniga goostay aniga waxeeyay aniga dhabarka u jeediyay mas'uuliyadda koobaadna waxay saaran tahay in la isu raadiyo midnimada dawladda Soomaaliya saaran tahay dawladda dhexe Soomaaliya yaa laga rabaa inay raadiso midnimada geed dheer iyo geed gaaban u fuusho gobolada tan ay dirsan yihiin dawladda inay geed dheer iyo geed gaaban u fuusho 10 jeer baan arintaa ku celceliyay hatta dhalinyarada dagaalamayso shabaabka la yiraahdo iyo dawladdu wada hadal inuu furmo